Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada qayb labaad oo ku eegi doona saameynta dhaqaale ee corona ee siyaasadahan uu ku yeeshay guud ahaan caalamka. Aalaba barnaamijka la socoteen ee qaybta koowaad waxaa marti inoogu ah Mudane Alamtalaal Nasiib Jiin oo ah khabiir dhankaasi ku takhasusay. Mudane ku soo dhawaaw barnaamijka adigoo mahadsan. mudane wariye waad mahadsan tahay marka haddana ku wada kulmayno deegaanka TV sidaad la socotayba ama wada ognahay ama bulshada Soomaaliyeed ogtahay aniga waxaan ahay shakhsi ka tirsan deegaanka TV oo ana maaragtay arrimaha falanqeynta coronavirus ku wada jirnay hadda waxaan aaminsanahay sidaad sheegaysid ama adigu weydiinaysa arrimaha dhaqaalaha uu corona soo gaarsiiyay waxa way arrimo waaweyn ama dhaqaale darro waaweyn baa ka soo dhalatay caabuqa safmarka hadda kale waxaad dareemi kartaa adduunka waxa way mid wadan wax dhoofiya iyo wadan wax loo dhoofiyo ama laba wadan oo maaragtay isdhaafsadaan dhoofitaanka waxyaalaha ka ganacsadaan sida awgeed waxay noqotay wadanka in wax soo galin wala khaasatan wadanka aniga ku noolnahay Kenya waxay noqotay in wax soo galin ama meelaha wax looga soo dhoofin jiray mar faraha badan sida China oo kale wadamaha Carabta sida corona awgeed loo wada joojiyo wax dhoofitaan la sameeyay jirin waxaad dareemi kartaa ganacsiyaasha marka waxay u haystaan wax horaan stock ay ku haysteen waxa stockooda ka baxsan ma heli karaan ilaa maaragta duulimaadkii iyo adduunka sida khaas si gaar ah hadana mar labaad iskugu celiya ama iskugu furo kulli waxaan dareemi karaa khasaare weyn ka soo dhalanayso waxayna u egtahay in maaragta wadanka ay ku qaadato ugu yaraan 2 3 4 sano inuu ka soo kaabto saameynta corona uu ku sameeyay dhanka dhaqaalaha hadda fiirisid ganacsatayaasha waxaa loo cayimay waqti gaaban ama waqti kooban inay ganacsadaan sidii hadda kale halka saac oo 12 subaxnimo ilaa halka saac oo galabnimo inay ganacsadaan waxaa jirta ganacsadayaal habeenka shaqadooda ahay kuwa hadda kale isbitaalada sida taqaaniidbu oo waqti walbo 24 saac ganacsan jireen oo hadda laakiin waqti kooban oo cayiman la sameeyo waa khasaare kulli ka soo dhalatay waxaad dareemi kartaa kuwa hookaska ama wadada eriyada meelaha public market ku ganacsadaan ayakane oo ku xirnaayeen ganacsiyaasha wax soo dhoofiyaan oo hadda maanta aad dareemi karto inay waxay ka ganacsadaan waayeen waxay kabaniyaashi ama warshadooyin wax soo dhoofin lahaayeen in la xiray ama adduunka wax meel isku mari la waayay markaan waxaan dareemayaa in khasaarooyin ka soo dhalan doonto wadankan waqti ay ku qaadan doonto inuu ka soo kaabto dhaqaale darrada ayada saameeyay coronavirus ka waran saameynta siyaasadahan uu ku yeeshay caalamka coronavirus adigoo ka ambaqaaday waaqaca jira Mudane Alamtalaal Nasiib Jiin mudane wariye waad maasantahay su'aashaad i weydiisay saameynta uu ku leeyahay coronavirus dhanka siyaasadda qolayto waa wax nin walba u cad adduunka hadda la joogo ama qarniga 21 waxaad dareemi kartaa inay noqoto siyaasadda shay loo baahno waag walba oo bariyo ama subax walba oo inoo bilowdo sida awgeed maadaama laga maarmi karin laakiin waxa la arkay coronavirus inuu dadka ka maaransiiyay waxaad dareemi kartaa in la kala xiray isku duulimaadkii adduunka isku duulhay siyaasiyiintii ku kulmayeen international conference iyo waxyaalaha nooca sida awgeed waxay noqotay nin walba siyaasi inuu gurigiisa ama wadankiisa isku reebo markan sida awgeed maaragtay siyaasadda ay u noqotay mid la kashifay coronavirus hadda sida dareemi kartid waxaa jiraan wadamo doorasho miiska u saarneed inay sanadkan 2020 la qabto laakiin may suuragal waxay u dhici wayse isdhaxgalka bulshada iyo maadaama waxa la joojiyay shacabka inay isku soo baxaan ay madaxdooda doortaan si dimuqraadiye ay ku doortaan way socon wayse waxa la ilaalinayaa isdhaxgalka iyo siyaalaha kale uu coronavirus ku faafi kara mudane wariye waxaa jira hadda wadan la yiraahdo Ethiopia oo kamid ah wadamada Geeska Afrika waxay noqotay doorasho inay qabtaan 2020 laakiin saameyn uu leeyahay corona awgeed iyo isdhaxgalka la ilaalinayo dib baa loo dhigay ilaa waqti dambe oo la sheegin haba iska ato laakiin waxaa jirta koonfurta Korea iyo maaragtay waqooyi daba inay qabteen doorashooyin ayakooba si fiican iyo maaragtay si xun waxa ugu jiro iska dhigatirayn coronavirus iyo saameyntiisa sida hadda aad garanaysaa maad la socotid dalkeena oo Soomaaliya waxa la rabay in laga qabto doorasho sanadkan 2021 January February laakiin dabaaldegii iyo maaragtay diiwaangelintii muwaadiniinta way suuragal wayse waxa sidoo kale aan ognahay waxa la ilaalinayaa isdhaxgalka marka doorashooyinka wadamo qaar in dib loo dhigo waxa kasbay coronavirus sida awgeed aniga waxaan dareemayaa saameynta ugu weyn adduunka coronavirus inuu ku lahaaday dhanka siyaasadda
daawadaalkaasina waxaa ku eg xubinta maanta aanu ku eegeynay saameynta dhaqaale iyo siyaasad ahaan uu ku yeeshay coronavirus caalamka. Halkaad kala socoteen waa Deegaanka TV. Subscribe, share iyo comment waa xaggiina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh waxaan idin leenahay isma dhaafna iyo kulanti dambe oo xiiso leh.